halkan waa isgooska Fagax ee magaalada Muqdisho saa aragtaan dadka halkan ku ganacsada ayaa gubaya taageerada qaarkood waxa ay ku qeylinayaan halgudhigyo ka dhan ah madaxweyne Farmaajo madaxweynkiisa dhameystay waa isgooska Fagax saa aragtaan waxa ku sugan ciidamo military ah kuwaas oo la sheegay in ay ka gadoodsan yihiin muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha waxa halka ku sugan saxaafadda warbaahinta Muqdisho qaybaheeda kala duwan halkan waa Fagax magaalada Muqdisho sidaad aragtaan raaca taageerada la kulmay waxa gubaya dadka degan xaafadda iyo sidoo kale ganacsada wadadan jidadka soo gala isgooskan waxaa ku jiran gaadiidka ciidamada militariga ee loo yaqaan cabdibilaha sidoo kale saxaafadda ayaa halkan ku sugan gaadiidka waxay gaarayaan ilaa iyo tobaniyo waxay ku jiraan ilaa iyo jidadka soo gala iyo xaafadaha isgooska saad arki kartaan waa gaari military ah dadka qaar oo aan la hadalnay waxa ay noo sheegeen in ciidamadan ay ka gadoodsan yihiin muddo kordhinta ay baarlamaanka golaha shacabka u sameeyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddada 2 sano ah waxaad toos nooga daawanaysaan barta Facebook ee telefishinka Universal ciidamada militariga ee gadoodsan waxa ay ku jiraan ilaa aagagan oo dhan waa mid kamid ah gaadiidka ay leeyihiin ciidamada gadoodsan waa gaadiid cabdibila ah saad arki kartaanba inkastoo halkan lagu gubayo taayiro isla markaana ciidamo ku sugan yihiin aaga xaafadan ay ku guda jiraan ciidamo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ee ka gadoodsan muddo kordhinta ay baarlamaanka golaha shacabka u sameeyeen madaxweyne Farmaajo haddana waxaa sidoo kale furan qaybo kale oo kamid ah wadooyinka Muqdisho saake
toos waxaad nooga daawanaysaan barta Facebook ee telefishinka Universal. weli halkaan ku sugan nahay waa isgoyska fada waxaa gubay qaar ka mid ah dadka degan xaafadan iyo agaaraheeda dadka soo gala isgoysidaan horeysaan ku sheegnaa baadiya xaafadaha gudahaba waxaa ku jiro ciidamo militari ah ee ka gadoodsan muddo kordhinta loo sameeyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo dhageysta sidoo kale ciidamada militariga ah ayaa rumaysan yahay inay ku yimaadeen gobolka deegaanada gobolka shabeellaha dhexe inkastoo aan la ogeyn saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan wixii warar ku soo kordha waxaad kala socon doontaan telefishinka Universal qaybadiisa baraha bulshada qaybaheeda kala duwan iyo waxaad si toos ah ugu daawan doontaan telefishinka Universal saacadaha soo socda waxaan ahay maxamed bulbul si toos ah waxaa idin kala soo hadlayaa isgoyska fala